kulanti wanaagsan daawadayaal halkan oo warbaahinta Soomaaliyeed production kuna soo dhawaada barnaamijyadeena qodobada aad ku daawan doontaan hadduu rabiidmo waxaa ka mid noqonayo xaalad degdeg ah oo dalka lagu soo rogayo iyo guux xooggan oo caawa ka jira magaalada Muqdisho kadib markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya maanta uu shir gudoomiyay shir aan caadi ahayn oo yeesheen golaha wasiirada Soomaaliya waxaan idin wadaagi doonaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo amar dul dhigay qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo xubno warbixin laga dhageystay ayaan idin soo gudbin doonaa qodobadan kalena waxaa ka mid noqonaya waa sidee xaaladda caafimaad ee Professor Jawaari oo qaar ka mid ah warbaahintu ay tabiyeen geeridiisa haddaba xaaladda caafimaad ee Professor Jawaari oo gudoomiye hore ee baarlamaanka Soomaaliya iyo waxa ka jira in degdeg dalka Turkiga loogu qaaday ayaan idin soo gudbin doonaa albaadina kale tan waxa ka mid noqonaya xog culus oo laga helay dawladda Soomaaliya oo ku hoolan inay dacwad ay ka gudbiso dawladda shisheeye kuwaasi oo qorsheenayo inay fashiliyaan howlgallada kacdoonka ee Al-Shabaab dalka looga xureynayo haddaba magacyada dawladda caan ah oo ay dawladdu doonayso in ay dacwad ay ka gudbiso ayaan idin soo gudbin doonaa islamida waxaad daawan doontaan ciidamadii ugu badnaa ee kuwa kumaandooska danab iyo kuwa gorgor oo laga dejiyay degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe iyo madaxweynaha uu wadi horudhac oo ay gaareen Cadale warkii ugu dambeeyay ayaan idin soo gudbin doonaa qodobadaas ayaan ku korfeen doonaa barnaamijyadeena hadduu rabiidmo waana fiidnimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay 6 bisha Oktoobar 2022 faynta ayaanu gudagali doonaa saacadee marka hore waxaan idin ka codsanaynaa dhammaantiinba inaad nagala qayb qaadataan faafinta warkan isla markaasina aad ku sheergalaysaan guruubyada lana wadaagtaan saaxiibadeena kala mahadsanidin haddii aan ku bilaabo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka caawa guux xooggan ayaa ka taagan iyadoo la warinayo inay suuragal ay tahay xaalad degdeg ah in dalka lagu soo rogi doono sida ay noo sheegeen ila wareedyo lagu kalsoon yahay dawladda Soomaaliya ayaa wado qorsho Martin Law la yiraahdo kaasi oo dalka lagu gelinayo xaalad degdeg ah oo ku aadan dagaalka ka dhanaa Al-Shabaab madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta shir gudoomiyay shirkii golaha wasiirada ayaa waxa uu faray wasiiradu inay ka qayb noqdaan xoreynta dalka iyo waliba la dagaalanka waxa lagu yaraa argagixisada waxaana jira kulan gaar ah oo ay Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre ay ka yeesheen kor kulanka golaha wasiirada Soomaaliya arinta ku aadan xaaladda degdeg ee dalka lagu soo rogi doono iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay isla garteen in markaas lagu dhawaaqo xaalad degdeg ah oo wadanka lagu soo rogayo madaxweynaha ayaa tagi doona Cadale dhawaan iyada oo uu ku dhawaaqi doono xaaladaasi degdeg ah howlo walba oo la hayo ayaana laga hormarin doonaa sidii la isaga dulqaadi lahaa cadawga Al-Shabaab ayuu yiri qof ku dhow xafiiska madaxweynaha dalka oo warbaahinta Soomaaliyeed si hoose ugu waramay deegaano ka tirsan gobolada Hiiraan Galgaduud Baay iyo gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa ka soconaya guluf lagula dagaalamayo dagaalamayaasha Al-Shabaab waxaana la dhaliilay in sidii la rabay duulaankaasi aysan ahayn dalalka saaxiibada dawladda Soomaaliya ayaa ballanqaad waxay u sameeyeen dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hogaaminayo iyagoo sheegay in dagaalka ka dhanaa Al-Shabaab ay si cad kaga qayb qaadan doonaan dadka qaar ayaa rumaysan in markii ugu fiicneed Soomaaliya ay cagta saari karto haddii ififaalada socdo laga faa'iideysto isla markaasina hamuunta shacabka Soomaaliyeed ee dawladdu ay ka faa'iideysato si ay uga dagaalanto waxa loogu yeero argagixisada dawladda ayaa sheegayo in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo shir gudoomiyay shir aan caadi ahayn oo ay maanta yeesheen golaha wasiirada Soomaaliya in madaxweynuhu uu amaro u dul dhigay qaar ka mid ah golaha wasiirada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo weheliyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda oo maanta shir gudoomiyay shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada ayaa lagu soo bandhigay warbixin ku saabsan qorshaha gurmadka horumarinta iyo waliba xasiloonida deegaanada laga xureynayo waxa loogu yeeraa argagixisada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kulanka golaha wasiirada hadal ka jeediyay ayaa goluhu waxa uu kula dardaarmay inay meel uga soo wada jeestaan dagaalka ka dhanaa Al-Shabaab iyo sidii gurmad degdeg loo gaarsiin lahaa dadka laga dulqaado meelaha shabaabku ay gacanta ku hayaan geeska kale tan iyadoo dawladda federaalka ee Soomaaliya wada dagaalkaasi ka dhanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa waxa soo baxay warar sheegayo in dawladdu ay wado qorshe culus oo ay dacwad ay kaga gudbinayso dawladda shisheeye kuwaasi oo ku hoolan sidii loo joojin lahaa kacdoonka ka socanayo gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya kaasi oo shacbi sabaabulay ee dagaal ay ka wadaan iyadoo gulufkan dagaal uu bilowday isla markaasina uu ka socdo gobolka Hiiraan ayaa ciidamada dawladda iyo macuusley waxa sida aad ku dhageysateen wararkeena horeba ugu suura gashay in Al-Shabaab ay ka saaraan deegaano dhowr ah oo ay gacanta ku hejireen isla markaasina hadda ayaa wararka qaar la soo warinaya inuu soo baxayo shaki soo kala dhax galay dhinacyada dagaalka halka aag uga wada jira marka la eego isfahamwaaga toddobaadkii hore sababay in deegaanada Booco buuqdo iyo waliba Moqokori ay ciidamada dawladda isaga baxaan shabaabna ay dib u qabsadaan ayaa muujinayo khilaafka dhinaca ciidamada saraakiisha hogaaminaysa u dhaxeeyo gaar ahaan khilaafkan ayaa u dhaxeeyo taliyaha nabadgelyada Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad iyo waliba taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya General Oduwa Yuusuf Raage iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba ra'iisul wasaare Xamza la sheegay in ay qorsheenayaan in dalka laga eriyo safiirada dawladaha Imaaraadka iyo Qatar inkastoo taas
taasina aysan sahlaneyn hase yeeshee ilwareede ayaa sheegayo in dowladdu dejisay qorshe dacwad ay kaga gudbinayso labadaasi dowladood oo si toos ah ugu lug leh dagaalada ka soconaya gobolada dalka isla markaasina la sheegay inay lacag malaayiin dollar ay ku bixinayaan sidii loo joojin lahaa dagaalada ka dhanaa al-shabaab ee ka soconaya gobolada dalka dowladda Soomaaliya ayaa u muuqato mid ay ka go'an tahay markaan dagaalka lagula jiro al-shabaab geesta kaleetana saacadii la soo dhaafay waxaa si weyn loo tabiyey in uu geeriyooday Professor Jawaari gudoomiye hore ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya gudoomiye hore ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari gudoomiye hore ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo saacadii la soo dhaafay ay tabisay warbaahintu geeridiisa ayaa warbaahinta Somaliland Production waxay ogaateen xaaladiisa caafimaad sida hore ay ka soo hagaagayso isla markaasina ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xamza Cabdi Barre uu faray in degdeg dalka Turkiga loogu qaado si xaaladiisa caafimaad loogu dabiibo Jawaari ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku xanuunsanaa magaalada Muqdisho iyadoo la dhigay mid ka mid ah cisbitaalada dalka waxaana ehladiisu ay noo sheegeen in baxnaano gaar ah halkaasi loogu fidinayay Jawaari ayaa la sheegay in loo qaaday dalka Turkiga amarkaasina waxa la ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xamza Cabdi Barre warbaahinta Professor iyo warbaahinada kale oo kamid ah warbaahinada maxalliga ayaa si weyn u tabiyay geerida Professor Jawaari oo muddo dheer soo hogaamiyay baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu xasuustaa doorkii uu ka qaatay dowladnimada Soomaaliya geesta kaleetana warar yeeshay warbaahinta Somaliland Production ayaa ku waramaya in taliyihii booliiska gobolka Hiiraan iyo waliba midka nabad sugidda ee gobolkaasi ee dowladdu Muqdisho ay ugu yeertay isla markaasina xabsiga la dhigay waxaa magaalada Muqdisho looga yeeray saacadii la soo dhaafay hoggaanka NISA iyo midka booliiska ee gobolka Hiiraan oo uu gudoomiyaha gobolka Hiiraan ku eedeeyay in ay ka gaabiyeen howlihii looga baahnaa ee dhinaca ammaanka kadib qaraxyadii ka dhacay magaalada Beledweyne 3 bishan Oktoobar warar soo baxaya ayaa sheegayo in taliyaha booliiska gobolka Hiiraan Isaaq Cali Cabdulle uu soo gaaray magaalada Muqdisho isla markaasina dowladda u yeertay inuu si degdeg u yimaado iyadoo taliyaha NISA uu soo gaaray magaalada Muqdisho xabsigana la dhigay iyadoo wararku ay sheegayaan in dowladdu baaritaano ay ku furtay lama oga sababta xabsiga loo dhigay iyo talaabada xigta oo dowladda Soomaaliya ay ka qaadi doonto labada nin mas'uul oo magaalada Muqdisho looga wacay si loogu xisaabtamo qaraxyadii waaweynaa ee sameeyadaminta ee ka dhacay magaalada Beledweyne Isniintii la soo dhaafay waxaana qaraxyadaasi ku dhintay ku dhawaad 30 ruux oo isugu jira mas'uuliyiin dad shacab ah iyadoo oo sidoo kale dhaawacyaduna ay kor u dhaafayaan in ka badan 6 qof loo xiray ma jiro dambiga inta leeg qof xil iska saara ma jiro xitaa wuxuu ka baaqsaday markii labada shil ee hore dhacday inuu tilaab ka qaado oo buundada uu tago oo labada buundo abligooda xajiyo ayaan farnay mana ku camal falin waxa kale wax laga naxa oo wax la yaab la qaybta nabad sugidda ruux gudaana daawadayaal intaas ayaan ku soo meeraya barnaamijyadeedka kala socoteen warbaahinta Somaliland Production inta ku kulmi doono mid laacina barnaamijyadeedkan waxa idin kaga tagayaa nabad iyo warsan